marar badan waxaa dhacdo in uu qalbigeena qaylinayo uu rabo in wax badan uu sheego haddana dhagahaynu aysan maqlaynin. waxaad dareemaysaa culeys badan, daal badan, niyad jab badan oo aadan ogeyn sababta waxa ay tahay. isku soo noqod wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah. waa anigoo Dr. Idil. halka aad naga daawanaysana waa YouTube-ka Dr. Idil. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe noo saar. haddii aad hore nool joogtayna waad mahadsan tahay. marar badan waxaa dhacdo in uu qalbigeena qaylinayo uu rabo in wax badan uu sheego haddana dhagahaynu aysan maqlaynin. waxaad dareemaysaa culeys badan, daal badan, niyad jab badan oo aadan ogeyn sababta waxa ay tahay. waxaan kula wadaagayaa 5 calaamadood oo ah 5 calaamadood ugu muhiimsan oo kuu sheegayo in aad u baahan tahay in aad hadashid. calaamada koowaad, wax walba oo aad qaban jirtay waxay u muuqdaan in ay yihiin wax culus oo aadan awoodin in aad samaysid. haddii ay ahaayeen waxaasi xitaa wax yaryar oo fudud oo markii hore kuu fududaa in aad samaysid, waxay noqon doonaa wax kugu culus amaba kugu qaato waqti badan si aad u samaysid. calaamadeena labaad waxay tahay in aad dadka ka fogaatid, aad u aragtid dadka culeys. haddii lagu soo waco, haddii lagu balamiyo, haddii banaanka la imaanayo, in aad soo dhexgeshid qoyskaaga, asxaabtaada, familkaaga iyo bulshada. waxaad u aragtaa wax culus oo waxaad dareemaysaa murugo badan. sidoo kalena waad ka dhuumataa oo waxaad tahay qof mar walba ku dadaalo sida uu u noqon lahaa keligiisa amaba gurigiisa uu joogi lahaa amaba dadka ka dhumto mar walbo. calaamadeena saddexaad, wax walba oo markii hore ku farxad gelin jiray ama aad u arki jirtay waxa aad ku raaxaysatid amaba hobbigaaga amaba balwadaada ay ahayd, hadda waxay noqon doonaan wax aan micno kuu samaynaynin. akhriska haddii aad jecleed, cayaaraha haddii aad jecleed, asxaab inaa waqti la qaadid haddii aad jecleed, dabaasha haddii aad wax walba oo aad markaas activity ah ama wax la qabanayo ah oo aad jecleed oo ku farxad gelin jiray, hadda marka aad samaysid wax farxad ah oo aad ka helaysid ma lahan. waxay noqonayaan wax routine camal oo normal aad u aragtid, kuumana soo kordhinayso wax farxad ah. calaamadeena afraad waa calaamad aad u muhiim ah, dad badanna ay iska indha tiraan. jirkaaga wuxuu kuu sheegayaa in ay cilad jirto. waxaad dareemaysaa madax xanuun badan, caloosha oo ku xanuunto mar walbo, daal tiro badan oo mar walba aad dareemaysid. xitaa haddii aad nasatay waa daalan tahay, murugo badan, walwal badan iyo cabsi badan in aad mar walbo la nooshahay. calaamadeena ugu dambeysa oo calaamada 5aad waxa waaye qalbigaaga in uu buuxsamay misena uu rabo inuu qalbigaaga hadlo haddana aadan aqoonin sida aad u hadli lahayd iyo waxa aad ka hadli lahayd. waxaa marar badan dhacdo qofka in uu u baahan yahay inuu faaruqtoomo oo waxa gudihiisa ku jiro oo dhan uu soo bixiyo, haddana waxaa jiro wax celinayo aanan u ogolaanaynin in uu hadlo amaba sheego waxa caqabada ku haayo. caqabadaasina waa mid ugu badan oo dad badan haysato oo maanta u diiday in ay bogsadaan amaba noloshooda ay hore uga socoto. gunaanadkeena, in aad hadashid macnaheeda ma ahan in aad tahay qof daciif ah. hadalka waa lagu daboobaa. sidoo kale marka aad hadashid waa tilaabada koowaad uu qofka ku bogsanayo. intaas oo calaamad aan soo sheegay ha iska indha tirin. haddii aad isku aragto waxaad u baahan tahay in aad nafistid oo aad hadashid, ama saaxiib aad ku kalsoon tahay ama qof qoyskaaga aad ku kalsoon tahay ama la taliya caafimaadka dhanka maskaxda in aad la wadaagtid. sidoo kale haddii aadan kalsooni ku qabin qof aad la hadashidna aad ka cabsanaysid sida dhacdo oo dad badan maanta aamusisay, waxaan kugula talinayaa in aad samaysid journaling oo aad qortid wax walba oo culeys kuga ah oo ku haayo ama qalbigaaga ku jiro. journalingkaas wuxuu kaa caawinayaa maskaxdaada inay isfurfurto, waxyaabo badan aad xaliso, stress badan iyo walwal badan oo ku haystayna aad ku daaweyso. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar, sidoo kale la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan. mahadsanidin.